السلام عليكم أصحابتي إذا جعلها دمانتو وين السلام أصحابتي وحرمنا مديني كعكسو متاسيتا إناني يسو جعلسان وأني قلنا الشيء ذا وحان كدقاقا يا ما ترى وين كدقاقا وأني بريا ولا لي يسو جعل الشيء ذا دمار وعيال حمي أن الشيء ذا كلا لكن متكلي وحيتا إن الشيء ذا إسلافيو وأنتم هوية أبا ديسكو شوين مش عيلكو نقطة طبعا وتقلت وقاري كرتا سسترتني وتقلت أنا روينا خال وين بريا يسنت مش على أن رشدي إنا عديتيو أما إنا وتقلت خال لكن وين نقطة يا ربي صابتي وين بريا يسنت ka hor inta aysan isku dayin in ay nafteeda goyso waxaa ugu horeeyay fiidiyooyo cataaw u badan iyo calaacal ay uga hadlaysa xanuunka iyo dhibaatada iyo marxaladda ay ku sugan tahay balse maadaama aysan helin dad iyada u gurmado oo u kaca ee xaaladeeda ka tala bixiya tusaaleeya meesha ay wax ka fiirinayso meelaan ahaynna wax ka tusa markii ay weysay natiijada ay dhashay waxa ay noqotay in ay isku daydo in dhala sun ah ay cabto taas oo nolosheeda qalqal gelisay nasiib wanaag waxay heshay isla markiiba gurmad oo waa laga gaaray saas darteedna waxaa lagu badbaadiyay nafteeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta janalka fakaaha nolosha dunida dacaladeeda meel walbo aad joogtaan ee inagu taxan waxaan idin leenahay maalinta idin wanaagsan ha idin wacnaato waa muuqaal cusub oo ku saabsan gabar yar oo dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo iyadu muuqaalkeeda baraha bulshada qabsada gaar ahaan TikTok-ga taas oo iyadu isku day dil ah sameysay nasiib wanaagse ka badbaaday sidaad intiini hore u daawatay amaba aan hore u daawanay oon arkin ay ku cusub tahay gabar 12 jir ah oo ku sugan Soomaaliya oo lagu magacaabo magaceeda Liina ayaa waxay isku dayday in ay isdisho oo ay sun cabtay iyadoo ku sheegtay sababta taas ku kaliftana inay tahay in ay ku hungowday amaba ay weysay wiil ay jecleed balse ay maxay ahayd markii ay ku fashilantay jiritaankeedan wax uu ka soo qaadi waayay ay u aragtay in nafteeda ay isdhaafsiso oo ay noloshaba soo gabagabayso taas oo ahayd runtii go'aankii ugu xumaa uguna ayaanka darnaa ee qof bini aadan ah uu gaaro in naftiisa uu naf kaleeto darteed u jaro run ahaantii sida gabadha muuqaaladeeda markii aan dib u raacay gadaal aan ugu sii fiiriyay waxaan ka arkay gabadha muuqaalka ay isdishay isku dayga dilka ah ay sameynaysay iyo muuqaalo kadib ay ku sharaxaysay sababta ay rabtay inay isku disho iyo kuwa ka sii horeeyaba in gabadha maalmahanba baraha bulshada gaar ahaan TikTok-ga ay uga hadlaysay xaaladda ay ku sugan tahay taasoo ah run ahaantii nasiib darro aad u weyn waayo qof walba waxa uu ku nool yahay guri waxa dhalay waalid waxa uu leeyahay ehel taas oo ay ahayd in ay iyadu kala sheekaysato isla markaana u sheegto xaaladda ay ku jirto run ahaantii halkaas waxa ay ka heli lahayd fursad in gabadha la caawiyo oo waalidkeed ay caawiyaan haddii waalidkeed sida ay sheegtay maadaama ay hooyo la'aan ay tahay ee hooyo aysan lahayn aabaheed amaba qofka markaas iyada nolosheeda mas-uulka ama haddii ay jiraan walaalo iyada la dhashay oo caawin lahaa ee caawimaad gargaar u sameyn lahaa balse maysan dhicin gabadha waxa ay mudatay in baraha bulshada ay maalin walba clip yar iska soo duubto maalintiiba dhowr clip oo muuqaal ah oo ay uga hadlayso jacayl iyo wax ku saabsan marka aad dib u sii fiirisid kulli waxaad u malaysaa gabadhu inay filim hindi ah ay matalayso run ahaantii markaan aniga aan sii fiiriyo balse filim hindi gabadha ma matalaynina nolosheeda ayaaba qaab hindi ahaan ah wada hindi ahaan ay u jeexday taasna waa nasiib darro ugu badan oo dhalinyaradeena xilligan jira haysato waayo waxa isaga qaldamay aflaanta la fiirsado waxa lagu jiro qisooyinka lagu jiro iyo noloshooda dhabta ah run ahaantiina waxa markaas iiga soo baxday in bulshadu aysan dhalinyartu amaba dadka dhalinyarada ah ee hadda nolosha ay ku cusub tahay aanay waxba badan ka ogeynba qiimaha noloshooda ay ku fadhido run ahaantii aflaanta hindiga ee Soomaaliga loo tarjumo Soomaaliya oo dhan si isku mid ah ayaa looga daawadaa guri walba hadaana laga daawanima meel walba ayuu ka shidan yahay dhinac xun iyo dhinac qaldanba dadku dhinacyo badan ayay dhinaca qof walba garaadkiisa uu siiyay ayay ka raacday nolol maalmeedka ayuuna qayb ka noqday qofku inuu
xaaladiisa uu ku misaalay xaalad hindi ah qiso laga yaabay qayaali laga sameeyey amaba hadday rabto run ha noqotee balse isbarbardhigga ay ku sameynayaan ee ay tahay completely wax qaldan oo run ahaantii u baahan wacyigelin uga baahan in bulshada laga wacyigeliyo dhalinyarada soomaaliyeed laga wacyigeliyo kuwa weliba hadda gaar ahaan nolosha ay ku cusub tahay anagu mar walba waxaa maqalnaa qof ayaa jaceyl u dhintay run ahaantii dad badanaa adduunka inta ku nool ayaa jaceyl wada dhiman lahayd haddiiba jaceyl uu wax dilabo qadar ayaa wax disha iyo qofka waqtigiisa uu dhammaaday ayaa loo dhintaa ama xanuun qofku dhacay ee jaceyl ayaa qofka intuu soo cararano nafta isku dhaafiyey waa waxyaabaha raqiiska ah oo flaanta laga barto xanuun ilaahay kuu keena waa gooni qofna ma istaahila inaad noloshaada u dhaafisid farintaas waxaan rabaa inaan gaarsiiyo dhalinyarada soomaaliyeed ee laga yaabay inay idaawan doonto tan ujeedada rasmiga aan rabay inaan muuqaalkan u duubo waxa ay tahay hooyooyinka iyo aabayaalka amaba dadka waalidiinta ah heer intee la eg ayaan annaga caruurteena ka warhaynaa waayo waxaan aragnaa gabdho iyo wiilal mobaylkooda wax alla waxa ay arkaan amaba waxa aan muuqaalada ka daawano baraha bulshada ka dhigayo waxaa laga yaabaa gabadhaas ama wiilkaas inuu guri ku nool yahay oo waalidkiis wixii dhale uu la nool yahay balse aysan war iyo wacaalba ka heeninba waxa gurigooda dhexdiisa ka socda amaba ilmahooda ay sameynayaan mobeylka gacantaada uu ku hayo gabadhaada ay ku hayso ama wiilkaaga uu ku hayo iyo qolkaas uu ku jiro waxa ka socda waa mas-uuliyadda waalidiinta in ay la socdaan oo ay ogaadaan waxa cunugiisa ama gabadhiisa ama wiilkiisa uu ku mashquulsan yahay run ahaantii sida gabadha hadalkeedaba aan ka dhadhansaday waxay tiri maadaama aniga aan hooyo la-aan ahay run ahaantii arrintaas aad ayay ii taabato waayo waxaan ogahay dad badan oo agoonnimo ku koray oo aaba la-aan ah qaar raja ah oo hooyo la-aan soo koray qaar hooyooyinkooda duruufo kala geysa ama meelo kala fog ay ku kala nool yihiin oo ama ehel la nool amaba aaba la nool ama ayeeyo amaba qof kasta qof familka ah la nool gabarya mid ayaan ku dhihi lahaa taasoo ah haddii mushkilad kusoo wajahdo kaligaa go-aan ha gaarin wax walba oo aad la kulantid waxaad leedahay famil ayaad leedahay qoys ayaad leedahay oo adiga noloshaada jecel rabo mustaqbalkaaga inay kor u qaadaan oo intaas oo sano maalinta adduunka aad timid ilaa ay hadeertaan meel walba kaa soo dhisayo oo kaa caawinayo haddii aad tiraahdid mushkilad yar caqabad yar oo nolosha maanta iga soo wajahda darteed ayaa nolosha isku dhaafinayaa waa nasiib darro waxa ayna nasiib darro ku tahay dadkii kugu soo tiir iyo tacabeele oo intaas oo sano kusoo korinaya adiga oo adduunyada ku keenay oo dhib walba aad mudato ayaga iska naftooda xataa dhahaya ilaahay oo nafteyda ku bedelo qofka cunugayga wixii ku dhici lahaa taas ayay nasiib darro ku tahay haddii mushkilad kusoo wajahda adduunku waa iska mushkilado badan yahay la kaasho qofka dadka kugu dhow qofkaas wuxuu noqon karaa hooyada adiga ku dhashay aabbaha adiga ku dhalay walaalkaa adiga kula dhashay haddii intaba aadan haysanin laga yaaba inaad leedahay ilmo adeero ilmo habreedyo amaba dad waxaa jiro oo aadan isla dhalanin run ahaantii balse aad ka jeceshahay dadka kula dhashay oo aad kuugu dhow dadkaasi la wadaag wax kasta oo noloshaada kusoo wajaho waayo waxay kaa caawinaysaa go-aanada ama qaldan ee maskaxdaada fikradaha qaldan ee maskaxdaada kusoo dhacayo inay kaa tala bixiyaan ay kaa siiyaan fikrado ay kugu dhiirigeliyaan in aadan wax qaldan qaadan waxaa lagula ogyahayna sideedaba ceeb ma keenaan qofna kuma dhahayo markaad tirahdid waxaan go-aan ku gaaray inaan isdilo oo suntan aa cabo qofna kuma dhahayo keep going sunta cab maadaama jaceylka aad ku guuldareysatay laazim qofkaas xal ayuu kula raadinayaa marka inta aadan tallaab qaadin keliya ma ahan jaceyl noloshaada noocyadeeda kala duwanba marka nolosha kugu adkaato oo albaaba aad istiraado way kaasoo xirmeen ilaahay tala saaro qofka kugu dhowne la tasho oo waxaad tidhahdaa dhib ayaan ama arin ayaa iga cuslaatay bal ra'yigaaga igu biiri haddii aad leedahay waan ka xishoona inaan u sheego dee annaga dhanba waad noo sheegto intaad soo fadhiisato tiktoka ayaa maalmo dhan dhahaysay aniga dhibkaas ayaa i haysto marka maxaa diidaya qof gurigaaga qof walaalkaa ah amaba qof saaxiibtaa ah amaba qof ehelkaaga ama waalidkaaga inaad sirtaada ku sheegato asagana uu caawimaad aad ka heshid waalidiinta soomaaliyeed waxaan ku baraarujinayaa inay ilmahooda si fiican ula socdaan il gaara ay ku hayaan baraha bulshada waxa ay ka sameynayaan waayo baraha bulshada waxa ka socda waa wax masiibo ah wax aan loo dulqaadan karin wax dhibaato aada nasiib wanaag hadda gabadha liina way ay badbaaday liina waxaan ku leeyahay habar yar macaan
nolosha way kuu cusub tahay waa jeclaan doontaa jeceelo badan ayaa kusoo mari doona inta aad nooloshahay waxyaabo badan oo aadan aqoon nolosha ayaad baran doontaa waxaad baran doontaa sida loo adkaysto xanuunka kusoo wajaho falkan alxamdulilah ilaahay wuu kaa badbaadiyey mar kale ha u laaban waxaan iyo wax u dhow jacaylkuna sidiisa waa mala awaal waa waqti dhumis jacaylka dhabtaa ee qofka uu wax jeclaado waa marka uu naftiisa jeclaado marka waalidkiis uu jeclaado kaas ma baaba'o kan waalidkaaga iyo adiga idinka dhexeeyo ma baaba'o ma guro mana isbedelo jacaylka naftaada aad jeclaatidna waa kan horumarka ku gaarsiiyo ee kor kuu qaada oo aan marnaba aadan ku guuldaraysanin marka inta aad qof kale jeclaan lahayd naftaada jeclaaw naftaada sida aad u horumarin lahayd oo aad himilooyin badan aad u gaarsiisan lahayd noloshu way kuu cusub tahay albaabada ha iska soo xirin hana niyad jabin hana isdhihin waad guuldaraysato waad fashilantay maadan guuldaraysan waxaa tahay dhalinyaro balse tallaabo kastoo aad qaadaysid 100 mar ka fikir lana tasho ehelkaaga waalidiinta Soomaaliyeedna adinkana waxaa iga dardaaran ah inaad ilmihiina la socotaan gaar ahaan hooyooyinka waayo ayagu wax walbo oo gurigooda ka dhaco way arki karaan wayna orin karaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan muuqaalkan mid lamida ku kulmayn waxaan